السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري كسو دوادا أرداغينا عيتيد ميديا iyo caynta show fadlan haddii aad nala joogtona sii share garay haddii kale nagu soo biro subscribe-ka noo saara waxaan ogeyn waayahanba inay golaha shacabka doorashadiisa ay socoto halka golaha aqalka sare la soo gabagabeeyay oo waliba si aan foolxumo badan oo corrupted ah aduu alla ku roon yahay ee maamul goboleedyada u isticmaaleen in ayaantaanba waayahanba waxaa shir u socday golaha musharaxiinta ee fadhigoodu yahay Hotel Jazeera ayaa waxay ka cabanayeen siyaasad doorashadan musuqmaasuqa xad dhaafka ee la wadooday haddaba halkay ku dambeysay cabashadoodii ayagoo la kulmay ra'iisul wasaaraha ama qaybaha kale ee bulshada waxaan hore u soo sheegnay oo fiidiyooyin hore aan ku soo gudbinay in golaha musharaxiinta naftirkooda ay kala daneysteen oo la kala dhantaalay kuwa qaarkoodna danahooda ay raacdeen sida ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre inuu daneysto oo ka tagay asagoo ku mamarsiyoonaya safarro iyo waxbaan ayaa ii socdo asagoo jooga dalka Turkiga ra'iisul wasaaruhu shir buu la qaatay qaybihii kala gudduwanaa ee doorashooyinka gudiyadooda ama masiid ama fiid waxyaalaha magacyadooda kala duwan ee qaabilsan doorashooyinka wuxuu yiri hinjabaado fara badan iyo dhaarin iyo waxba uu sheegay isagoo raba inuu ku qanciyo ragga haddaba waxa gudiyaashii waxay soo saareen gudiga fiidka kii federaalka waxay soo saareen in 2 kursi oo kamid ah kuraastii lagu muransanaa in la hakiyo oo uu mudan yahay kursiga 103 oo u tartami lahaa ninka la yiraahdo Jawaari hase ahaatee beesha uu ka dhashay Jawaari ayaa tiri ama saxiixiisii ninka oo hadlayay maalmo ka hor ayaa yiri kursigaasu ee Jawaari markaan xilligiisa maadaama 2 xilli doorasho aynu hore u siinay haddaba haddii kursigii mar labaad la hakiyay Jawaari ma u tartami doonaa taas waxa iska caddahay Jawaari inuu mar kale u tartamay sababtoo ah fursad kama haysto ama fursad kama soo heli doono meesha la yiraahdo 103 iyo kursigaas inuu ka soo qaato kursigaas oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Buur-Hakaba hase ahaatee yaalla magaalada Baydhabo golihii labadaas kursi sababta loo dejiyana waxay ahayd cirbad suuxisa in lagu daro midowga musharaxiinta ay isku kala daadiyaan ama lagu qanciyo hase ahaatee qorshaha doorasho waxay tahay in mar walbaba laga hortago oo aan fursad la siin nimanka la yiraahdo midowga musharaxiinta fursad soo heli 5 kursi markii la doorto mid inay ku yeeshaan afarta kalena farmaajo oo tunka saarto sida doonaba ha lagu maareeyo ama lacag ha lagu maareeyo ama xoog ha lagu maareeyo waxaan si ognahay maalmo xilli ka horeysay isbuuc ka hor ama muddo 10 maalmood 10 cisho ka horba in la hakiyo kursiga 67 ee uu fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb uu soo qaatay Yaasiin Fari gudiga inuu hakad galiyo hase ahaatee gudiga waxa lagu cadaadinayaa oo ragga madaxtooyada Villa Soomaaliya ku cadaadinaysa in ay gudiga uu soo saaro in kursigaas xalaal yahay si fiican isku doorto maadaama ayagu markii horeba ay hakiyeen doorashada nimanka la yiraahdo midowga musharaxiinta wax badan way sheegeen options ama khiyaaraad badan miiska noo saaran way yiraahdeen saate wax badan oo hadda ay la joogaan ayaa ma jirinba asxaabay briefka yaraa ee doorashada ku saabsanaa ayaan halkaa ku soo gabagabaynaynaa fadlan haddii aad nala joogtana sii share haddii kalena subscribe leh. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.